هلا صاحب. صاحب waa ku fiicanahay iwarna foontka saaxib sidoo kale waa ku fiicanay maasha dhanka ka waran niyo aniga fiicanahay maasha Allah waxaan mashquulkeena oo kaliito adiga dhanka maxay haysaa maasha Allah saaxib deera kale xagee joogtaa saaxib meeshi aan jawi ku qaadan jirnay ayaan joogaa marka saaxib meesha suugo ma hay saaxib hadda ku imaanay saaxib waay اوكي صاحب ما سنت او كل ما انا يعضبه يو صاحب يورن او كوفي عن صاحب ساتي عفانت كذا صاحب سوكر الحمد لله ونوض قوى صاحب محين اوكل دنبي انا ذيقا صاحب باجو قال لي مشغول ادون لي صاحب ما انت محا اسوى ايودا مدام مرن سوكر دنبي سي اد صاحب ان حوه ما مضى ايال حانوستي مركا ارنتا سايا قبسة صاحب ان وحكلو بروبليم مجران انا صاحب كوجو سمان ما يبغى أوجي لكن ستريس كلا يوفرن صماعهم مركو دباتو كاستمحته ويعني سحبك يا هاي دباتي حنونك وحنونكي وحل بنقول دري مع ساحب هدي أن وحبك هذا ممكن دباتو هذا محانا ذي ساحب كان هاي ويا دنيا وحلوتشي وبحيته إن وحل سكتره لأن إفكا ولا لوي عادي هذا سحبك قالياته مرك ساحب بروبلم كاستو حياي هوياي يا حمزان العشان بقول دول بان بهنا يعني دور جر أيام كلاسو حريري بلس صاحب مشغول أيام زايد أهد مركا سياسة يمانته كلها صاحب أنا ذي كان مشغول يقرأ وأنا صاحب كي أتاي ميرفوق يعني أسكلي مانلي وحال بدأ نسلسو منلي يعني مركا مشغول أنا ذي حاجة يجمع ماني قرأ وقت والباقي بات ويهلي كرتا دباتا إنا حل وميم ويبريك مال هذين هو بحسن يسوع أدي صاحب صوبتك وصعدا وبحيد أنت إن قف كلت إيه حن إن هذه جتاي يعني قصة ما نسوق لسه يكون صباعي إنه صاحب اللي ولا جناع سياي هؤلاء حقيقهم مريان لما هلام بنقطة بريان صاحب ورنت جناع سي هذا يبلغتي مشغول زائد يعني النقدي يعني صاحب مرة قار وحد عدا أنا مرة كان جناع سي كجنا الصبر كاي أركو كله إنه صح حسست وحيالي أنسوس من جنة واجي وقت يدي لصودا في مركز صاحب adduunkii ayaa marba wareegtay balbas ay isku bedel marka saaxib hadartaana waxa la joogaa waqtiga shaqada waxaan doonayaa inaan shaqadan ka gaaro midna aan leeyahay waa soo wicdana saaxib haduu ilaahay yiraahdo lambarkii iyo xafiiskii waad ugu imaan kartaa lacagtana telefoonka ayaan ku soo gelinayaa horay soo gudub سيتاي صاحب وقف فعلا صاحب يورا ما شاء الله سيتاي سودو صاحب سودو ودو هاي فرحت يتينا ما تقول لكم ما دام وقت دوك دمبسي سيكلا صاحب سيتاي ما شاء الله صاحب ganacsigan meesha u furo waa meeshan saaxiib waa meesha programkan ugu bilaabanaya صاحب ganacsigan maxaa ku soo kordhay runtii hadda wadada guusheena waa ay qadar safar badan ayaa helnay leedahay qandaraastan hadda gashay inaan ku guuleysan doono waa qandaraasyo hore khasaar badan baa ku imaaday sida hawshan intaan gelinba ayaan ka fikiray qandaraasta muxuu yahay
qandaraaskaasi waa dhismo guri haddii aan ku guulaysano 40% faa'iido ayaan leenahay. qolada qandaraasta la gashay xagee ka soo jeedaan? waa qolo ganacsatooyin oo ka soo jeedaan dalkeen hooyo. qandaraaskaasi waxaas leeyahay ganacsigan kor ayuu u qaadi doonaa. maadaama uu yahay ganacsigan ganacsi guri dhismada, waxaan ku fikiray inaan ku soo diro ganacsigan shirkadda shamiindada see u aragta. waa fikir fiican saaxiib, hawshaasna way soconaysaa haddii la hirgeliyo. kaliya waxaan iga xigto in nashqadii iyo wixii meeshii aan ka hagaajin kaliya aan soo diyaarino wax walbana program leeyahay. hadda gurigan dhisanaad arkayso iskama dhisno ilaa nashqad lagu dhiso mooyaane. ka walwalin arrintaas aniga ayaa soo diyaar naqshada waan ka soo baaran digay. mid kale ganacsiga hadda ay galayso ma rabi sida hore inuu noqdo, waxaan rabaa ganacsi lagu faa'iido oo meel lagu gaaro oo si faan gadaal aan u noqonin. waayo saaxiib ganacsiyaasha hore waan ku khasaari jirnay. waa runta saaxiib, ganacsigan haddirtan qandaraaskan aan gelino ma noqon doono kuwii hore kale, mana dhicisooyi doono. waayo nashqadihii hore wax badan baan ka bedelay, system cusub iyo nashqado hore ayaan la imaaday, taas oo naga saacideyn doonto sidii hore wax ka bedelan inaan keenno. halkan waxaan ku haynaa buugi oo taas aan ku diyaariyay dhaatooyinka kulli ood ka fiirin karta qaabkan wax u diyaarinayna. waxaan filayaa inay ka heli doonto nashqada saan u diyaariyay. waxaan filayaa nashqadan inay ku cajabin doonto, waayo nashqadii horeeto wax badan ayay ka duwan tahay. naqshadan aad ay cajab gelisay, waana lacag way soo saari doontaa, balse uma malaynaysaa inay soo saari doonto dhaqaale aad u badan. haa, midaas waan ka hubaa. waayo ganacsigan qandaraaskan haddirtan aan gelino wuxuu noqon doonaa qandaraas dhaqaale aad u baaxad soo saari doono, taas oo sabab doonto shirkadooyinka darisaan leh inay kulligood anaga hoos yimaadaan ee qandaraas walba nagu soo wareejiyaan. haddana waxaa la gaaray waqtiga aan bixi lahay. waan ka xumay maadaama waqtigu nagu yaraa. halkan waa xafiiskeena, waqti walba waad igu imaani kartaa si fiican arrimaheena ganacsi uga hadalno. waxaan rajaynayaa in arrintaa ku guulaysan doono, waqti walbana garabkaaga ayaan nahay. waxaan noqon doonaa dad aad isugu kalsoon oo ganacsigana meel ka soo saaro. waxaan ku rajaynayaa khayr, kulanto dambe wacan, sarto dambe oo xiiso leh. shaqadan aad baan ugu daalay, waxay waxaan hadda programmada si dhamaystirtaa.